aawan hawiyihii shalay lahaa farmaajo u haysta nin fiican ee markii barakacayaasha xabarinta la soo aruur lacagta loo aruuriyay u banaanbaxayeen run mooday aaway dabkii xalay ka dhacay suuqa bakaaraha maxamed cabdullaahi farmaajo kooxdiisa ka dambeeyay sirdoonkiisa ka dambeeyay waxaa la rabaa maadaama hawiye madaxweynimada laga qaatay oo siyaasadii looga adkaado wuxuu rabaa farmaajo xaqiiqada sidaa weeye inuu hawiye dhaqaalahooda baabiyo ayuu rabaa runta idin sheegaya waxa weeye hawiye tashada ها دبكي لباد أيها هذا بكارة كغرحي دبكي حالة 3 ساعات اسكسو عدو قفو تكتل وعيارها ملاييننا دقال عصبة إذن كوب باللاوضي سياسة يالا ذكرات دقالي دقالها ذكرات دقالي واسكو عقلي واسكو فكر محمد عبد الله فرماجي عبد حوش كبري انتو عبد حوش سوغاي ايو امسيه waxa kale oo idin sheegaya ogaada ciidanka imaaraadka ay tababareen oo hal askari oo hawiye ku jirnaa raba in madaxtooyada la wareegaan wixii hawiyaha jooga madaxtooyo wala mursado ku daro kulligoodna waa la eriyaa hadalkaas meel iga qora suuqa bakaaraha dabka ka kacayna ma ahna dab iska kacay waa dab farmaajo iyo kooxiisa ay ka shaqeeyeen hadday ka u tahay barakicin hawiye reeraha kale Soomaaliyeedna way xigaan waxaad xasuustaa xilligii maxamed siyaad barre raxan weyn oo masagada lagu tunto oo dharka lagu dhaqdo waad ogeedeen dhibka heystay waad ogeedeen maxamed siyaad barre xilligoo joogay in la yiri dameerka waa in dabada bac looga xiraa ama dambiil looga xiraa daayada maxamed cabdullaahi iyo kooxiisa wadana waa tii kacaanki siyaad barre weeye waa kacaanki siyaad barre daayisa ay wada waa maxamed cabdullaahi farmaajo nin inta qudbeeyay وفرماجة نينك انت قد بيميل استاغيري صدن قف او وح مقرطاها يا قرحي لغو ديلي فالجيني كما بخين هدايا هدانا كسو بخي افكيسا ومدحوينه Soomaaliyeed صدن قف او هويه او وجه لغو ديلي iyo 40 lagu dhaawacay inuu ku tilmaamo wax magarato doqonka hawiye u baaqatay qof kale oo Soomaaliya ma qaadan karo maanta ka darna farmaajo wuxuu yiri oo aad wada ogtihiin jaalaha maanta wuxuu yiri maxaabiista hawiye beerahan ku falayna markuu maxaabiista ka hadlayo waa kuwa xamar joogay hawiye ya hawiye oo dulqaadkiina dimuqraadiyadiina meel xun bay idin la maraysa waxa ka dhashana waa ogaan doonaa wiilkii gabadha hawiyow waa ogaan doonaa magac xumada haddana waxa lagu yaqaanaa dad xayawaanaha lagu yaqaanaa buuga oo qor farmaajo ku sheegay in hawiyuhu ay yihiin yey buugiisa akhriya oo taariikhda dib u baara آذن عبد الله عثمان ومدحوينيه وقوري الصومالي سيد ديمقراطي كوريجي حلكا أيو فرماجة كوشاقا إنو يهي جاجوس ترياني وها عبد الله عيسى محمود وقبل نمدا داليي أو هاي نكي قرب دوبي تغي حرية دان كفان صوت افتي سوهري أيو كنت نعمل جاجوس صحي محمد عبد الله فرماجة مركب وحاوي محمد عبد الله فرماجة وندب حسوسنا إياه وحد عكون سقال بغل سقاشي كودي يوحي كوري marka uu leeyahay maxaabiista beerahan ku falayna muxuu kala jeedaa maxaabiista beerahan ku falayna muxuu kala jeedaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin daarooda heedekada boosaaso canshuurta laga qaado ma keeni karaa dekada Kismaayo nin ogaadayna joogay canshuurta laga qaado ma keeni karaa hargeysa inta maxaabiis jirta ma ka hadli karaa boosaas inta maxaabiis ku jirta ma ka hadli karaa garowe ma ka hadli karaa Kismaayo baydhabo ma ka hadli karaa wuxuu maanta ka hadlay waxa weeye cashuurta laga qaado hooyada hawiye ee qudaarta ka cashuurta laga qaado dekada ee airportka weeye wuxuu ka hadli karana waa maxaabiis hawiye xabsiga xamar ku xiran weeye indhaha kala fura aqli soo yeela wuxuu maxamed cabdullaahi farmaajo wado waa qabyaalad qaawan oo aan shaati loo gelin wuxuu astaan u yahay istustus qabyaalad فضيت أيو وياها أستان سد هذا سال واحد ستا فرماجو أنت ونعيب نوقبه وأنك سده دي أسوق بيلا إيميل فقراء سده دي قبضه قبه هايدين ما جا إذا سده نوعو يري معناها أنا وصدق كلا هين قبضه أوقبي هايدين وهايدي هو سلاك الجبين أيو ولا أبشره سهرة بشاره هاينا سدك دقه ما جا إذا سده نوشاقي
ها waxa weey maanta waxa la marayaa sheekadii ahayd askari ku qosla korneel hebel waa la xiray ma jirto hawiye qof dimuqraadi la sheegi karto marka dimuqraadi laga hadlayo maanta ma jirto qof hawiye dimuqraadi la sheegi karto jabhadii barakeysneed ee USC ee kacaanka walaataga sane ee kaligitariga ee dhigyacabka ahaa ee maxamed siyaad bare naga kicisay ee gumaysiga naga dul qaaday ayaan maanta ka xishoonaa inaan amaano u duceyno anigu waxaan leeyahay jabhadda USC wiilashii gabdhihii dhintay ee kumanaanku ahaa ilaahay ha u naxariisto xaqooda dabadhirif ayaa ku fadhiistay laakiin waxay ahaayeen jabhad gobonimo doona oo ii horseeday inaan xorriyad ku noolaado haddii xilligaas ay jabhad USC dhal lahayn maxamed cabdullaahi farmaajo ilmihiisa guri mukayf oo xamar ku yaalay ku jir lahayn anigana geed hoostiis ayay malaariya igu cun lahayd